نصر عرفاي كوكين جنة نصر عرفاي كوكين جنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada asxaabteeda kusoo dhawaada janalkeyga Nasra Carfaayo Cooking Channel. asxaabe haddii aad ku cusubtahay janalka fadlan subscribe noo saar, haddii aad horey noola joogtana soo dhawaa mar kaleento. asxaabe maanta waxaa sameysaneynaa insha Allah muufo ileen maalin walba waxaa baasta iyo bariis le mala cuni karo mahayno, marmar muufa lagu tuuranaaye. marka insha Allah maanta muufa sameysaneynaa. muufadaaniitina aaday u fududahay, waana muufo maasha Allah nafaqeysan oo caafimaad leh insha Allah. habe meeshan waxaa ku haystaa waa 2 koob oo bur ah. burkana koobkan aan kusoo cabiray oo mar walba wax aan ku cabiro waa 2 koob oo bur ah. meeshan waxaa ku haystaa waa koob qamadi ah, qamadi shiidan waaye oo sida burka camal u shiidan. sidoo kale meeshan waxaa ku haystaa 3 qaando oo caano boore ah, caanaha caadi gasaca ah oo 3 qaado ah. meeshan waxaa ku haystaa 3 qaado oo saliid ah oo liif waaye. saliida macsarixta oo ku darsan kartaa ama saliida caadiga oo cuntada lagu karsado. meeshan waxaa ku haystaa 3 qaando oo qaandada cuntada lagu cuno oo sokor ah. meeshan waxaa ku haystaa 1 xabo ukun ah. sidoo kale meeshan waxaa ku haystaa 1 qaado oo leeb qaando oo qaandadan yarta ah oo leebata ah. meeshan waxaa ku haystaa qaandadan afkeeda hore adi haafkeeda oo aad haaf zaaidna aheenin oo cusbo ah. meeshan waxaa ku haystaa qaandada isla haafkeeda oo waxa ah qarfo shiidan. meeshan waxaa ku haystaa waa baking powder oo isagana isla qiyaastaas ah. asxaabteeda waxaa ku qasi doonaa insha Allah 2 galaas oo galaaskan ah oo biyo ah insha Allah. biyahana ma kulula, waa biyo iska caadi ah. waxaa ku qasi doonaa aniga mashiinkan lagu qaso waxyaabaha keega iyo malawax iyo waxsaas camal ah. haddii aadan haysanin gacanta waa ku qasan kartaa, dhibaato ma lahan. ani hadeerta makiinadana ku qasanaa insha Allah. isla socod wanaagsan, waa soo qasaa insha Allah. waata asxaabteeda waa ujeedaa sidaasaan loo jilcinaa. jileeca laga dhigaa 2 koob biyo, intaas yartaas ka reebay 2 koob biyo ahayd. markaas sidaas u jilcine maxaa kulama ee jilcan tahay muufada waa hadhow kulama ee noqotaa soft insha Allah. xasameynayna marka insha Allah waxa sugeynaa ilaa 25 daqiiqo. waa daboolana insha Allah, waa isku soo laabanayna insha Allah. marka meel iska dhiganayna waa qamiirsanayna ilaa 25 daqiiqo. 25 daqiiqana markay noo dhamaato insha Allah waa kusoo laabanayna. waxaa sii sameysanaa wixii markaas lagu cuni lahaa. waata asxaabteeda haday 25 daqiiqo u qabtay muxuu ahaa isheeg muufada, laakiin 30 daqiiqo ay qaadatay. markaas sidaan u qamiirta ujeeda indha yeelatay way soo fuurtay. waa ujeedaa hadeertaan birta dabka soo saartay. waxaa sugeynaa intay noo kululaanayso insha Allah. waa duwaneynaa marka insha Allah. asxaabteeda aan had qaandadan ku duwanaa u isticmaali doonaa. haddii aad qaandadan sidaan u godan aadan haysanin, waxaa sameynaya bakeeriga caadiga lagu cabo shaaxa, kaasaa ku dardarsanay. dhib dhan ma jiro, wixii markaas ay haysatid oo gurigaaga ku yaala leh isticmaale insha Allah. hadeertaane waxaa sugeynaa inta birta nooga soo kululaanaysa insha Allah. waata asxaabteeda hadda birta way noo soo kululaatay. waxaa ku shuban doonaa xabadkeena koowaad insha Allah. bismillah.
waata asxaabteeda marka sidaan korka ugu qalasho waxa sameeyne wax yar saliida ku shubeysaa kadibna waa gedine ما شاء الله وجدا سيده hoos oo gaduudata oo qurux badan tahay kadibna qaandada sidaan ugu celcelisi ayada dhan ee qaybta kor hadana uga bislaato asxaabe dabkana waa loo gaabinaa muufadan hadii kale dhaqsina way ka gubanay ayadoo dhaxda ceeriinka ee markaas marka dabka u gaabi tartiibkaaga iskaga baashaal marka wixii waqti la galiila qurxoonaad ma hinohe waata asxaabteeda ma sha Allah waa ujeedaa qaybta hoosana sidaan quruxda badan ee nooga soo baxday si u guduudatay hadeertaan waxaa idin tusinaa xabadkeen labaad insha Allah hadeertaan qaybta oo korow ee nooga soo qalashay waxaa ku shubanaynaa saliideena kadibna waa gedina xabadkeena labaad isagana hadda diyaar oo noo noqday ujeedaa sidaan quruxda badan oo noogu soo baxay sidaan ku soo dhameena dhamaanteeda waa isku soo laabaneena marka insha Allah waata asxaabteeda muufadeena marka soo diyaarsanay sidaan quruxda badan ee noogu soo baxday waa ujeedaa sida oo qurux badan tahay ayada dhan sidaas isku mid u tahay jileeceedana wax laga sheekeyn karo ma ahana ujeedaa sida u jilcan tahay inta heesanin Allah siiyo anagana Allah noo siyaadiyo videogan like-ta ka iloobin una sii share garee asxaabtaada intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waa walaashiina Sara Carfaayo idinkaga tagaysa khayr iyo caafimaad bashbash iyo barwaaqo insha Allah Sara Carfaayo